Ka hor haddii aan ku dhaho $50 iyo ka badan ayaad ka samayn kartaa maalin walba adigoo jooga Soomaaliya. Weliba uma baahnid khibrad, sidoo kale uma baahnid lacag iyo dadaal badan. Wax kaliya aad u baahan tahay waa inaad alaab ku share garayso TikTok, Facebook ama WhatsApp. Xitaa haddii aadan aqoon sida content loo sameeyo, waxaa hore lagugu diyaariyey dhowr video oo aad qaadan karto, wax yar ka bedeli karto, kuna dari karto codkaaga. Taas macnaheedu waa fursadan qof walba ayaa bilaabi kara. Haddaba maanta waxaan ku barayaa Affiliate Network Soomaali ah, kaasoo ku oggolaanaya inaad suuq geyso alaab si aad dakhli ugu samayso. Waxaa lagu magacaabaa $. So videogan waxaad ku arki doontaa step by step sida akoon loogu samaysto $, sida productska loogu soo qaato, sida videoyada productkaas loo helo loona edit-gareeyo, ugu dambeyn sida loo suuq geeyo alaabta adigoo isticmaalaya TikTok, Facebook iyo WhatsApp. Aan gudaha galno muuqaalkeena. Ugu horeyn, waa maxay affiliate marketing? Affiliate marketing waa hab suuq geyn ah kaasoo qofku uu xayeysiinayo badeeco shirkad kale leedahay, kadibna uu lacag ka helo iib kasta oo ka yimaada xayeysiintiisa. Tusaale, ka soo qaad saaxiibka wuxuu leeyahay dukaan lagu iibiyo moobilada qiimahoodu yihiin $100. Wuxuuna ku dhahay macaamiil kasta oo aad ii keento oo iga iibsada moobil waxaad igu leedahay 30% ama $30. Haddaba macaamiil kasta oo aad u keento oo moobil ka iibsada waxaad heli doontaa $30. Sidoo kale, haddii uu 2 moobil iibsado waxaad heli doontaa $60 and so on. Haddaba affiliate marketing waa isla fikraddaas, laakiin waxaa loo bedelay qaab casri ah oo digital ah. Adigu ma lihid badeecadii, ma kaydinaysid, ma diraysid, mana la macaamilaysid macaamiisha si toos ah. Shaqadaadu waa kaliya inaad dadka tusto alaabta saxda ah. Si fudud, affiliate marketingku waa inaad noqotaa isku xiro u dhexeeya macaamiisha iyo shirkadda, adigoo helaya faa'iido sharci ah mar kasta oo iib dhaco. Laakiin su'aasha muhiimka ah ayaa waxay tahay, sidee lagu ogaanaa in iibku adigu ka yimid? Taas jawaabteedu waa fududahay. Markaad ku biirto platformkan, waxaad heli doontaa link kuu gaar ah. Linkigaas waa mid khaas ah oo lagugu aqoonsado adiga. Qof kasta oo linkigaaga ku soo dhufta oo shay ka iibsada platformka, nidaamku wuxuu si toos ah u diiwaangelin doonaa in macaamilkaas dhankaaga ka yimid. Qaabkaasina waa qaabka affiliate marketing u shaqeeyo. First of all, new tab furo, kadibna waxaad qortaa $.com. Waxaad si toos ah kugu soo bixi doonaa website-ka $, kaasoo ah fursad cajiib ah oo loogu talagalay dhalinyarada jecel in ay online lacag ka sameeyaan. Sidoo kale website-kan waxaa ku jira badeecooyin tiro badan, kaas oo kuu sahlaya inaad lacag ka samaysid commission joogto ah kaliya inaad xayeysiin samayso. Website-kan sida uu shaqeeyo website-kan kaliya waa inaad diiwaan gelisaa, kadibna aad doorataa badeecada aad doonayso. Markaas waxaad heli doontaa link kuu qaas ah, kadibna waxaad samaysan doontaa lacag oo linkaas promotionkiisa lacag ku heli doontaa. Lacagta bixinteeda si degdeg ah ayaa lagu sii doonaa oo shirkaddan waa shirkad aad loo agaasimay. Haddii aan eegno dhanka supplementska iyo skincare-ka iyo electronic-ga, badeecooyin tiro badan ku jiro meeshan. Electronic-ga koley waxay sheegeen dib inay u soo diri doonaan. Haddii aad rabto in aad ogaato badeecooyin ku jira website-ka oo idil, waxaad taaban kartaa shop. Haddii aad taabato waxaad arki doontaa badeecooyinka oo idil. Waa goobta laga iibsan karo badeecooyinka si toos ah. Qof kasta website-ka soo booqda waxaa ku jiro supplementskii iyo skincare-kii oo dhammaystiran. Si qaas haddii aad rabto inaad skincare-ka badeecooyinkeeda aad aragto, waad arki kartaa oo skincare aad taabato waxaad arki doontaa badeecooyinka skincare-ka. Si aad isku diiwaan geliso, waxaad taaban doontaa button-ka ay ku qoran tahay affiliate. Haddii aad taabato waxaad ku soo bixi doonaa form dhammaystiran. Formkan waxaad ku qori doontaa username-kaada qaybta hore. Username-kaada waa inuu ka koobnaadaa magacaaga, kadibna ay ku xigsataa nambarka aad leedahay. Tusaale, haddii lagu dhaho Maxamed, waa inaad qortaa Maxamed, kadib lambarkaada oo 252 ka bilowda ayaad ku xijinaysaa. Kadib markii aad username-kaada dhammaystirato, waxaad qori doontaa email-kaada. Email-kaada waa muhiim, waa email-ka saxda ah aad isticmaashay inaad isku diiwaan gelisaa. Sidoo kaleeta waa inaad password samaysataa. Intaas markii aad samayso, kadib qaybta hoose waxaa kaga soo bixi doonaa meel aad tick saari doonto. Tick ayaad saaraysaa, kadibna register ayaad leedahay. Button-ka register markii aad leehdo waxaa ku soo bixi doona in lagu soo aqbali doono sida ugu dhaqsiyaha badan. Usually waxay qaadataa 24 ilaa 48 saacadood. Si lagu soo aqbalo waxaa ku soo dhici doontaa lambarkaaga gaarka kugu soo dhici doonta fariin ku sheegaysa in lagu aqbalay. Markii lagu aqbalo, waxaad mar kale soo booqan doontaa website-ka $, adigoo markaan affiliate sax ah. Waxaad taaban doontaa qaybta affiliate ay ku qoran tahay. Kadib markaad affiliate taabato, waxaad tegi doontaa qaybta login-ka. Kadib waxaad ku qori doontaa Gmail-kii aad isku diiwaan gelisay iyo password-kaaga. Login ayaad taaban doontaa.
batanka login markii aad taabato waxaad si toos u arki doontaa dashboardkaada oo dhammaystiran. Dashboardkan wuxuu kaa caawinayaa xogta aad ka samaysay shirkadda Dollarstone si toos inaad ula socoto. Total referralska haddii aan tagno waxay kuu sheegi doontaa inta qof aad keentay. Total visitska waxay kuu sheegi doontaa inta qof ku soo booqatay. Total unpaidka waxay kuu sheegi doontaa inta lacag aad leedahay oo weli lagu siinin. Total paidkana waa inta lacag aad shirkadda kala baxday. Credit haddaa haysatan credityada kuu soo haray ayaa meeshaas ku arki doontaa. Waxaa jira number khaas ku ah oo affiliate ID la dhaho. Numberkaas aad ayuu muhiim u yahay oo waa numberkii kuu generate garee lahaa linki adeeg khaas ku ah. Numberkaasi wuxuu ka soo muuqan doonaa qaybta sare oo affiliate ID-ga. Hadda affiliate-kan numberka ID-ga tusaale ahaan waa number 6. Wuxuu noqon doonaa number kasto 6 kaliya ma ahan. Numberkaas waxaad u ilaashan doontaa si khaas ah waayo waa numberkii aad ku generate gareysan lahayd affiliate link ku khaas ah. Haddii aan u soo laabano si aan si toos ugu guda galno dashboardkeena, qaybta referralska waxay kuu sheegi doontaa inta referral ayaad samaysay oo aad ku soo xirtay website-ka. Visitka waxay kuu sheegi doontaa inta qof ku soo booqatay iyo waqtiyada ay kala haayeen. Qaybta payoutska waxaad kala socon doontaa dhaqdhaqaaqa lacagaha aad ka samaysay. Sidoo kale qaybta affiliate linkska haddii aad imaato waxaad ka generate gareysan kartaa link ku khaas ah si aad u suuq geyso badeecada aad jeceshahay. Marka waxaan soo qaadan doonaa productii aan haysiin lahaynay. Ugu horreyn waxaad taabataa qaybta ay ku qoran tahay marketplace. Waxaad kala xulan kartaa skincare ama supplements wixii aad jeceshahay inaad haysiiso. Haddii aad skincare taabato waxaad arki doontaa badeecooyinka skincare-ka oo dhammaystiran. Kadib marka aad fiiriso xog dhammaystiran aad ka qaadato productii kugu wacan ayaad dooran doontaa. Waxaad halkan ka arki doontaa statistics kuu sheegaya alaab kasto iyo qiimaha aad ka heli karto iyo qiimaha ay joogto. Waxaa meeshan ku kala qoran promote now, sales page, support page. Haddii sales page-ka aan ku dhufano waa page-kii uu arki lahaa macaamilkii aad keentay ama gadanaya productiga. Wuxuu haystaa 2 option si uu u iibsado badeecada. Wuxuu taaban doonaa hadda iibso si toos ugu gato ama optionka labaad oo ah ka dalbo WhatsApp-ka. Haddii uu WhatsApp ka dalbado waxaa la xiriiri doonta shirkadda Dollarstone. Halkaas ayuuna ka iibsan doonaa oo ka dalban doona badeecadiisa. Adigana aad ka sameyn doontaa commission kuu gaar ah. Sidoo kale haddii aan eegno qaybta support page-ka waa page loogu talagalay in lagu caawiyo affiliate-ka. Wuxuu ka heli doonaa dhammaan xog wuxuu u baahnaa haddii ay noqoto muuqaalkii uu baahin lahaa, haddii ay noqoto sawiradii uu isticmaali lahaa iyo script ka caawinaya in fikrad uu ka helo product uu haysiinayo sida loo suuq geeyo. Muuqaalada waa la tegi kartaa si toos ah taleefankaada ama computerkaada ay kugu degi doonaan. Sidoo kale sawirada waxaa ka hooseeya faa'iidooyinka oo aad ku haysiin karto iyo product kasta faa'iidada ay leedahay. Tusaale ahaan midan waxay sheegaysaa in ay maqaarka iftiimiso, qoraxda inay ka difaacayso. Sidoo kaleeto scriptiga waxaa kasii hooseeya qoraal digniin ah. Qoraalkaas digniinta ah waa muhiim. Iska ilaali shuruudahaas ha ku dhicin si aad u weynin akoonkaada. Haddaba haddii aan u laabano qaybta marketplace-ka waxaan arki doonaa statisticskii ama xogtii aan u baahnaynay si aan go'aan u qaadano badeecada aan haysiinan. Earning per click-ka lacagta ugu yar oo sell aan samaysay aad ku heli karto waa $5. Sidoo kaleeto waxaad arki doontaa commissionka aad sameyn lahayd oo 33 ama 30% productyaashu kala duwanaan doonaan. Si aad u hesho linkigaada kuu khaaska ahaa oo productii aad ku haysiin lahayd waxaad taaban doontaa promote now. Promote now markii aad taabato waxaad qori doontaa affiliate ID-gaada tusaale number 6. Waxay ku xiran tahay ID-ga aad haysato. Kadib generate hop link aad dhihi doontaa waxaa ku soo bixi doonaa link kuu khaas ah. Kadib copy ayaad dhihi doontaa. Markii aad copy dhahdo waad iska browse kartaa inay kuu shaqeynayso oo tab cusub ayaad ku furi kartaa. Markii aad furto waxaa ku soo bixi doonaa productii aad dooratay sales page-keedii oo saxda ahaa. Si aan u ogaano inuu shaqeynayo visitkii aan sameynay waa inaan u laabanaa dashboardkeennii si aan u eegno qaybta visitka. Qaybta visitka haddii aan eegno visitka everything aad ku ogaad haddii ay ka korto waa sax oo booqashada aad samaysay iyo tracking-ka aad samaysay waa mid 100% mid sax ah. Sidoo kale haddii aad marketplace-ka tagto waxaad promote gareyn kartaa qaybta supplements-ka. Supplements-ka waa ku dhammaystiran yihiin oo vitaminadii oo dhammaystiran haddii noqon lahayd vitamin D3, magnesium, multivitamin iyo vitamin B12. Sidoo kale zinc ayaa kugu jiro. Midkii aad ka hesho commission fiican aad ka aragto si qurux badan aad haysiin karto ayaad dooranaysaa oo promote now ayaad dhehaysaa. Kadibna waxaad generate gareysanaysaa
link kuu qaas ah. Kulligood lacag fiican ayaa saaran. So mar haddii aad dooratay productii aad xayeysiin lahayd, sectionka waxaad ku baran doontaa qaabkii aad productii aad dooratay videoyaashaas ula soo degi lahayd, u edit gareyn lahayd, kadibna aad u post gareyn lahayd oo asxaabtaada aad ula wadaagi lahayd. Marka hore waxaan soo qaadan doonaa productii ay xayeysiin lahayd muuqaaladiisii. Ugu horreyn waxaad booqataa qaybta marketplace-ka. kadib markaad ku dhufato marketplace-ka, productii aad xayeysiin lahayd dooro. kadib productii aad ka heshid qaybteeda hoose ee ku qoran tahay support page-ka ku dhufo. halkaas waxaa kugu diyaara muuqaaladii aad ku xayeysiin lahayd, sawirada iyo qoraalada scriptiga, wax walba aad u baahan tahay. muuqaalada markii aan aragno, tusaale muuqaalka saddexaad ayaan ka helnay. muuqaalka saddexaad ayaan la soo degaynaa, qaybta download ayaan taaban doontaa. kadib markaad la soo degtid waxaad toos u aadi doontaa CapCut ku dhufo, kadib new video dheh. kadib muuqaalkii aad soo degsatay ku dhufo. kadib waxaan sameyn doonaa, waa edit gareyn doonaa. waxaan taabanaynaa qaybta ay ku qoran tahay audio. kadib waxaan sii dooran doonaa qaybta ay ku qoran tahay record. kadib record ayaa taaban doontaa markoo dhammaad saddexdaas. kadib waxaad bilaabi doontaa inaad saarato xayeysiintii. codkaan saaranayo waa inuu productiga kuseeyaa. productiga scriptigeeda waa inaa faham ka soo qaataa. scriptigaas akhrinayna productiga faa'iidadeeda, kadib anaga cod saaranayno. tusaale ahaan hadda cod waa saaranaynaa, waxaa u xayeysiinaa qaabkan. haatan codkayga waa dhamaystay. wixii dheeraadka ah oo intuu codka aad doonaysay iyo muuqaalka wixii dheeraadka iska jar. marka si aan u aragno codkii aan duubanay iyo inuu qurxan yahay, waxaan taabanaynaa meesha ay ku qoran tahay enhance. kadib enhance markaan taabano meesha tigta ayaan furanaynaa. waan sugaynaa in ka buuxsamayo. waxay qaadanaysaa. kadib markay ay buuxsanto, codka hoose ayaan dhamaystiranayaa, waa buuxinayaa oo waxyaabay buuqa iyo noiska inaas ka jarayaa. kadib codkii oo ayadoo qurux badan resultigan ayaa soo baxaya. haddii maqaarkaadu dry yahay, qaleel badanna aad ku aragtay, nabar yarna kaa soo baxeen, haddaba xalkaada waa kareenka Purito. Purito waa skin care ka caawinaysa maqaarka ay siiso qoyaan, sidoo kaleeto maqaarka ayay jilcisaa, oo sidoo kaleeto maqaarka ay u fiican tahay, waxay difaaca dabiiciga ah ee maqaarka. haddaba haddii aad u baahan tahay waxaad ka sidaas ayaan waxaa resultigii muuqaalkii aan duubanay. marka export ayaan taabanaynaa, waa la soo degaynaa. haatan qaybta xigta ayaan u gudbaynaa oo ah dadkeena la wadaagna. so muuqaalkii aan soo edit gareysanay baan markaan TikTok dhigaynaa. TikTok baa raadinaysaa oo ku dhufanaysaa. ugu horreyn si aad muuqaalkii aad had soo edit gareysay TikTok ugu baahiso, uguna promote gareyso, waxaad u baahan tahay inaad kun followers ka badan haysatid. sidoo kaleeto inaad linkiga dhigtid bio-ga. meesha edit ku qoran tahay ayaad taabanaysaa. kadib qaybta linkska ayaad taabanaysaa. kadib website-ka ayaad taabanaysaa. kadib meesha ayaad ku paste gareynaysaa linkiga. kadib save dheh. markii aad save dhahdo, kadib ka laabo hubi linkiga inuu meesha ku yaalo. kadib qaybta linkiga waa kaasaa meesha yaala. kadib linkiga ku dhufin oo shaqeynaya iska eeg. linkiga baan ku dhufanay. kadib open dheh. product page-kana si toos ku geeyaa la rabaa. si toos ee product page-ku geeyay, halkaas ayaa laga iibsan karaa. kadib qaybta balaaska ayaad taabanaysaa. kadib muuqaalka ayaad ku dhufanaysaa. inkastoo aad taqaaniin qaabka loo post gareeyo, haddana waa tutorial yar. kadib next ayaad taabanaysaa. next marka aad taabatid, meesha ayaad ku qoraysaa marka linkiga in bio-ga uu qofka iibsan karo. linkiga bio ka iibso ayaad ku qoraysaa qaybta captionska oo qoraalka yar. kadib post ayaad leedahay. halkaas waa kuu dhigmay. kadibna asxaabta meeshan kaaga xiran ayaa ka iibsan doonto. halkaas ayaa commission badan ka sameynaysaa. so marka hore waxaan soo booqanaynaa website-ka marketplace-kaan tegaynaa qaybta skin care-ka. productii aan u baahnayn inaan promote gareynaa ayaan qaadanaynaa. promote now ayaan taabanaynaa. kadib promote now markaa dhahday nambarkaada affiliate geli number 6 waa generate gareystay linkii Ruby dheh, soo qaaday linkigaada. kadib waa promote gareynaynaa. marka hore waxaan u baahannahay muuqaal ama sawir aan promote sawirkaan qaadanaynaa si sawirkaan aan u promote gareyno asiga, maadaama uu story aan dhigi rabno WhatsApp-ka. sawirkaas aan la fiicnaaday. kadib WhatsApp-keena tegaynaa, story-ga taabtay meesha media. kadib sawirkii ayaa soo gashtay waxaysiinta. kadib waxaysiinaynaa marka ka iibso serumtan linkiga xiga ee statuska. tusaale saasaan qoray, maadaama WhatsApp-ka uusan ogoleen hal mar linkiga in la dhigo. kadib mar kale ayaan linkiga dhigi doonaa. statuska xiga ayaan linkiga dhignay. qoraalka keliya ayuu linkiga dhigmaa marka uu linki la dhigayo statuska WhatsApp-ka. kaliya qaybta qoraalka ayuu dhigmaa.
hadda waxaan samaystay labadaba waa dhigtay. Haddana waa ka baxeynaa, waxaa kaloo ku xayisiinaynaa dhanka iyo Facebookaan tagay, storygaan taabtay, kadib sawirkaan xayisiin lahaa soo doortay. Kadib qaybta hoose ee stickerka aan ku dhufanayaa, meeshaan ayaa link ka raadinayaa. Linkii markaan helo kadib waan ku baast gareynayaa linkigayga. Qaybta stickerka qaybteeda linkiga ayaan ku baast gareeyay linkigayga. Kadib waxaan ku qorayaa ka faa'iidaysta sii ramtaan, waan soo qurxinayaa. kadib ayaan qoraalka soo jiidayaa, waxaa keenayaa qaybta u dhow linkiga. Saas ayaan ku baast gareeyay oo storygayga waa dhigtay. Asxaabteeda iyo dadka igu xiran baa ka iibsan doono. Saas baa commission ku sameynaya. Marka hadda waad u jeedaan waa ii dhigmatay. Storygayga waa laga iibsan karaa haddii linkiga lagu dhufto. Si toos ayaa looga iibsan karaa. Qof kastoo soo booqdo wuu iibsan karaa. Qof walba oo iibsadana commission ayaad leedahay kuu gaar ah. Marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa, qaabka storyga loo dhigto. haddii aad u baahan tahay productyaal badan inaad hal waqti xayeysiiso isla markaana ku xayeysiisto platformka TikTok kuma ogolaan doono inaad hal link ka badan saarato bio-ga. Soo ciladaas u xaliso waxaad u baahan doontaa website ka caawinaya in linkayaashaada oo dhan aad hal link ka dhigato si aad bio-ga u saarato. Softwarekaas magaciisa waxaa lagu magacaabaa Linktree. Linktree waa software ka caawinaya in linkayaashaada oo idil aad hal link ka dhigato si qofka ku soo booqda productyaashaada oo idil uu meesha ugala socdo, mid kastana uu ugu iibsan karo. Soo si aad iskaga diiwaangeliso Linktree waa inaad furataa new tab kadibna aad qortaa Linktree. kadib markii aad qorto Linktree waxaa ku soo bixi doona website-kooda rasmiga ah, kadib waad ku dhufan doontaa. Then si aad iskaga diiwaangeliso waa inaad taabataa sign up for free. kadib waxaa ku soo bixi doona pagekan. waxaad doorataa continue with Google. kadib waxaad doorataa Gmail kuu sabkalisan device-kaada, kadib continue taaba. waxaad halkan geli doontaa username-kaada. username-ka kadib markii aad qorto taaba continue. creator dooro, then continue de. skip iska dheh halkan. brandskan uma baahnid, waxaa jirta qayb free ah hoos u soo wad, kadib get started qaybta free-ga waa $0. kadib themeskan midka ku cajibiyey ka dooro. tusaale ahaan aniga haddii aan qaato waxaan ku dhisi doonaa productskayga idil start aan dhihi doonaa. kadib muhiim maahan platformkan waa iska dooranaysaa. kadib continue de, halkan continue de. then halkan waxaad ku qori doontaa bio-gaada array ku soo jeedaysa leh. tusaale ahaan aniga waxaan ku qoray waa kuwan alaabteyda. kadib waxaad dooran doontaa profile-ka sawir ku qaasa dooro. kadib upload de. kadib continue de. continue de. halkan waxaa kuu sameysmay profile dhammaystiran. si aan u soo gashanno productskii aan u baahnayna dhammaantood waa inaan dooranaa marka ugu horeysa qaybta ay ku qoran tahay shop. kadib qaybta shop ku qoran tahay markii aan doonano waxaad dooran doontaa my products. my products markii aad taabato ugu horreyn waa inaad soo qaadataa productii aad u baahneed linkigeeda. waxaan tegi doonaa promote now sida aan naqaanay soo generate gareysan doonaa productii aan u baahanaa linkigeeda. kadib waxaan usoo laaban doonaa Linktree oo waxaan dhihi doonaa add. kadib waxaan ku baast gareyn doonaa halkan linkii aan soo qaadanay. deetan waxaan dooran doonaa calaamadda plusta. sidaas waxaa noogu sameysmay productii ugu horeysay ee Linktree. si aan productyaal tiro badan u gashano waqti hal mar waxaan u laaban doonaa website-keena oo product kaleeta ayaan soo generate gareysan doonaa. kadibna waxaan imaan doonaa Linktree, waxaan dooran doonaa sidii hadda aan sameynay plusta. sidaas ayaan ku wadi doonaa oo productyaal tiro badan ayaan gashan karnaa waqti hal mar ah. sidoo kale waxaan soo gashi doonaa productgeeni saddexaad. sidoo kale waxaan soo gashi doonaa productgeeni afaraad. waa so on waa isla hal process. kadib markii aad soo dhamaystirto inta product aad u baahneed waxaad dooran doontaa oo taaban doontaa qaybta manage ku qoran tahay, kadibna publish shop ayaad dhihi doontaa. kadib markii aad publish dhahdo dhammaan productskaada
sidan quruxda badan ayay usoo muuqan doonaan oo hal nooc oo isu wada leh ayay usoo wada muuqan doonaan. Kadib waxaan taaban doonaa qaybta settingska. qaybta shopka ayaad furi doontaa, halkan aad bay muhiim u tahay. Sidoo kale set shop as a main tab waad dooran doontaa oo tick cagaaran ayaa saari doontaa si shopka u noqoto priority-ga linkigaada. Kadib waxaan usoo laaban doonaa qaybteennii profile-ka si aan usoo qaadano linkigeeni khaaska ahaa ee Linktree. Waxaad qaybta sare oo midig ayaad ka heli kartaa linkigaada Linktree, waad ku dhufanaysaa, kadib copy ayaad dhehaysaa. Kadib waxaad furan doontaa tab cusub, waxaad ku paste garaysaa linkiga soo qaadatay. Waa kana linkigaadii iyo productskaagii oo dhammaystiran. Marka linkigan aad soo qaaday oo Linktree-ga ah ayaa waxaad dhigi doontaa qaybta bio-ga ee TikTok-gaada. Qaabka loo dhigana hadaya ayaad baratay si productskaada oo idil hal link ay kugu noqdaan. Qaybta TikTok-ga bio-ga ayaad dhigan doontaa si product walbo laga iibsanayo halkaas link loogu soo raaco. Ogsoonow linkigan oo aad TikTok-ga dhigtay kuma haboono storiyada sida Facebook iyo WhatsApp storieska, laakiin TikTok-ga wuu ku haboon yahay. Sidoo kale Facebook haddii post ahaan aad u dhigaysid wuu ku haboon yahay, ama Instagram-ka ama YouTube-ka. Laakiin storiyada sida WhatsApp iyo Facebook statuskooda kuma haboono, oo hal link khaas ah ayaa ku haboon. Sidan quruxda badan ayaad u samaysatay productskaada. Productyaal badan ayaad hal mar gashan kartaa Linktree. Sidaas ayaana product walba gooni loogu gadan karaa, adigana u heli doontaa commission kuu qaas ah. Linktree waad samaysatay, product kastana sidaad u jeedo waa lagu dhufan karaa oo waa la iibsan karaa, adigana waxaad heli doontaa commission kuu qaas ah. Sidaas ayaadna ku samaysatay profile-kaadii Linktree.